xafladda qalinjibinta arday dhamaystay waxbarashada dugsiga sare ee iskuulka Carafaad ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadan oo ahayd mid si heer loo soo agaasimay isla markaana ay ku qalinjibinayeen dufcaddii 11aad ee ka aflaxday iskuulka Carafaad ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, arday, waalidiin, macallimiin, madax ka socotay qaar ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho. qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadda oo ay ku jiraan arday hore ugu baxday iskuulka Carafaad oo madasha ka hadlay ayaa ku amaanay iskuulka Carafaad sida uu ugu dadaalay tayada waxbarashada ardayda. waxaan dareemayaa ardayga Carafaad ka soo qalinjibiyo inuu yahay ardayda ka duwan dhanka akhlaaqda, aqoonta, hab fikirka wanaagsan, inuu ardayda dheer yahay ayaan dareensanahay. waxbarashadu inaad sii wadaan ayaa idinku dhiirigelinayaa. waxaa idin rajaynayaa mustaqbal wanaagsan, waxaa idin rajaynayaa nolol wanaagsan, ayaa idin rajaynayaa. waxaan rabaa sidoo kale inaan ku laabto runtii macallimiinta iskuulka Carafaad iyo macallin kastoo Soomaaliyeed runtii wuxuu muujiyay dadaal oo ah in arday wax la baro. markaad tahay arday iskuul dhigta waxaad tahay qof la maamulo, laakiin marka aad tahay qof jaamacad dhigto waxaa weeye mas'uuliyad ugu weyn adiga macnaha dusha ka saarmaysaa. xaqiiqatan maadaama aad imtixaan aad gasheen, xaqiiqatan imtixaankana waxaan idinka rajaynayaa hadduu alla idmo insha Allah inuu Ilaahay idinku guulsiiyo. Carafaadna wuxuu ka mid ahaa iskuuladii ama ardaydii oo mar walba oo ahaa number 1 aanan jirin arday ka dhexdaysan ahayn. haddana waxaan u rajaynayaa mar walba duca lagama dhamee, duca marab lagama dhamo. waxaan ugu daceynayaa insha Allah inuu Ilaahay u fududeeyo. horseed iyo Carafaad tad wax la isbaraayo ma ahan. hadalkayga waxa uu badnaan doono waa hambalyo iyo dhiirigelin. dhammaantiin waxaan idinku hambalyeynaa doorka wanaagsan ee soo gaarteen. iskuulka Carafaad wuxuu ka mid yahay iskuulada ardayda sano dugsiyeed walba aan ka dhicin imtixaanka dowladda. insha Allah tiimkan waxaa la jeenayaa inay noqdaan tiimka kaalmaha kala doono. waxaan idinku dardaarmayaa aqoontiin inaad ku darsatiin akhlaaq. aqoon oo akhlaaq lahayn wax ma tareyso. insha Allah tacaala warka yaa idinku badinina. iskuulka Carafaad waa iskuulada xamar u horeeyo sanadkan hadda qaybta imtixaanka u dambeeyay imtixaamada 3 qaybood waxa la qaybta ist iyo bariya ist iyo wasiyalla wuxuu ka mid yahay qaybta galbeedka uu ka mid ahaa. wuxuu soo gal iskuulka koowaad oo akhlaaqa xagga ayuu soo galay. intaas oo aan baleenay waalidiinta tan sheegay. gabagabadii xafladda ayaa waxaa ka hadlay madasha isla markaana soo xiray xafladda maamulaha guud ee iskuulka hoose dhexe sare ee Carafaad Ustaad Maxamed Sheekh Cali isagoona mahadcelin u jeediyay martidii ka soo qayb gashay xafladda. Allah subhanahu wa ta'ala oo inoo suuro galiyay in halkaan aan isugu imaanno annagoo u hambalyeynayna u xafladaynayna qalin bedelashada dufcadda 11aad 2022. marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa marti sharafta ay ka mid yihiin jaamacadaha, macallimiinta, waalidiinta iyo ardada. waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. run ahaantii ardada halka taagan oo maanta loo xafladaynayo waxay soo mareen